xinta ay noo soo diyaariyey bal dhegeystayaal aynu ku soo noqonno Afrika. madaxweynaha South Sudan Salva Kiir ayaa sheegay in aan cadeymo loo haynin in askartiisu ku kaceen dambiyo dagaal waxaanu carabka ku dhuftay hadiiba ay jiraan xadgudubyo ka dhacay ciidankiisu inay yihiin dhacdooyin kooban. qaramada midoobay ayaa labada dhinac ku dagaalamaya South Sudan hore ugu eedeysay inay galeen dambiyo dagaal iyo kuwa aadaminimada laga galay oo ay ka mid yihiin kufsi iyo dadka isir loo laayo. madaxweyne Kiir oo waraysi siiyay telefishin Kenya laga leeyahay ayaa waxa uu sheegay in xataa haddii isaga la horgeeyo maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ay caddaan doonto inuu ceebka saliib yahay. xasan shire oo ah gudoomiyaha udoodayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika ayaa arrimaha xuquuqul insaanka ee South Sudan waxa uga warramay Ciise Xaaji Cabdulle. waxaa dhici karaysa in uu arkay sida hadda caalamka uga dhab naqatay inay ku wajahmaan xaaladda South Sudan oo naqatay mid aad iyo aad u dhaafila damiirka dadka qaaradda Afrika iyo tan caalamka khaasatan saddexda wadan ee la yiraahdo korjoogtada Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Norway iyo wadamada IGAD ayagana loo gacan baneeyay in ay daadihiyaan waxaan la yiraahdo geedi socodka nabadda ee wadankaasi. waa la daalay waxaa lagu daalay isdabamareynta iyo iswarwareejinta. marka waxaa dhici karaysa gudiyadii baarista ee qaramada midoobay kii Afrikaanka dhammaantood waxay hoosta ka xariiqeen in dambiyo dagaal iyo mid bini'aadanimo ee damiirka dadku uu diidayo ay ka dhaceen wadanka South Sudan ayna geysteen ciidamada dawladda iyo kuwa mucaaradka labadaba. marka la fiiriyo madaxweyne Salva Kiir waxa uu sheegay in ciidamadiisa aysan wax dambi ay galin. waxa ka dhacaya South Sudan dhinacyada isku haya ma gaarsiisan yihiin in haatan lagu tilmaamo dambiyo dagaal. marka koowaad riboorada la hayo Obasanjo oo qaaradda Afrika gudigeedii madax u ahaa iyo kii kale ee UN-ka riboorada ay soo saareen intaba waxay xaqiijiyeen ay maragna u fureen in meeshaasi ay ka dhaceen dambiyo dagaal iyo mid bini'aadanimo oo xasuuq badan uu ka dhacay, shacab la laayay, tuulooyin dhan la gubay, cisbitaallo iyo iskuulo aan loo aabayeelin, dad faleebooyin ka taagan yihiin oo maaragtay cisbitaallo ku jiro maxaa yeelay qaybta kale ay u dhasheen webiyada lagu shubay, dhammaantood kufsi maaragtay loo heebdayda lagu sameeyey haweenka iyo gabdhaha iyo carruurta South Sudan, dhalinyaro oo da'doodu aad u yar in xoog lagu qasbay la ciidameystay. dhammaantood waa wax maaragtay documentaysan waana arrin muran uu ka taaganaana ma ahayn marka hore. aniga hadda waxaanba garan laaba waxa murankan hadda keenay. waxaa keliya oo la sugayey in isku dhaf maxkamadeed oo ah mid qaaradda Afrika ay soo magacaawdo iyo mid caalamka hybrid court la yiraahdo la isku dhafo markii nabadani maaragtay dhacday hadda IGAD ay brograaraysay ee xoogaa fusho ka dambana ay fariistaan Jubba ay ka dambana dhageysi bilaabaan. taasi waxay ahayd arrin lagu wada heshiiyey oo Salva Kiir madaxweynuhuna uu qayb ka ahaa. marka hadda arrintan dafirkan bilowday waxay la saan qaadaysaa aniga sida ay la tahay in spirita maalmahan ka jirtay qaaradda Afrika oo wiilashooda waaweyn amba dadkan maaragtay madaxweynayaasha ahay ay ayaga toqfasha isku haysteen oo qof anaga naga mid ayaan la dafin, qof anaga naga mid ayaan la maxkamadeynin ay dhahayeen. taas bay malaha ay ku haysaa laakiin iban taas u malayn maaye in Salva Kiir amba Riek Machar ay helayaan maxaa yeelay madaxda Afrikaanka xataa oo ayaga qaarkood iskood arrimo u dhib badan ku jiro waa ku daaleen arrinta South Sudan. xasan Salva Kiir waxa uu hadda leeyahay haddii lacala maxkamad la soo taago waxa uu hubaa in wax dambi aan